saddex dibi iyo libaaxi. Beri baa waxaa meel ku wada noolaa saddex dibi iyo libaax. Saddexda dibi waxay siisiiba meesha keen cabeed joogeen waxay ku wada noolaayeen sida wala. Bas saddexda dibi waxay kala ahaayeen mid cadaan ah iyo mid guduudan iyo mid madow. Saddex noole waxay ahaayeen saddex dibi oo iskaashata xayawaanada kale u yimaada iska celiya. Bas libaax baa agtooda joogay. Libaaxa intuu cunuu rabay bas wuxuu maxaa samaysaa haddaad tagtid aastaalin mid ka cunna kuwa kale inta ku yimaadaan isla kaadkeen way gudliyaan maxaa samaysaa alee ku cunyaane wuu fariistay wuu fikiray maxaa samaysaa markaas wuxuu yiri qorsaan kusugu tagay dibigii malawaayo ayaan iyo dibigii cadaayo kusoo soka kii cadaayo maqan baa intuu yimi buu yiri waryaal mii maqashaan inila taliyo dibigaas cadaanka ah habeenkii waa nagu soo raacaya anaga waxaan joognaa meel duur ah cadowkan way balan yihiin dibigaas cadaanka waa in aan iska eerino markaas ayagii nacsin waxay lahaayeen waa iska baacinanaa bas dibigii cadaa waa la baaciyey. Daayaantii kalena kii malawaayo maqan baa intuu yimi kii casaabi ku yiri waryaa kaas malowna iska baacino maalintii buu ifayaayay dad iftiinka saan dabiya iska baacino haye buu yiri bas waa la baaciyay intuu kiina ka tabatay buu soo cunay. bas kii kale ma casaaba u dambeeyay intuu asan u yimi kiina ma soo cunay markaas kii casaaba intuu arka soo la cunay buu yiri iska gacan kullaani maanta ma cunin waxay cuntay ayaanta dibiga cadaa iska baacin ka tabatay soo cuntay ayaantaas soo cuntay kaalay ku suxuro yaa ku naxayanta ku sabulay.